magacayga waxaa la yiraahdaa Nasra Cabdisalaam waxaan deganahay Sweden magaalada Eslöv waxaan ahay Soomaali Masiixi waxaan qaatay Masiixiyada 15 sano ka hor ciise waa badbaadiyahayga waa ilaahayga nool Soomaalina waxaan u baryayaa inay wada qaataan Masiix Bismillahir Rahmanir Rahiim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo ah Nasra Cabdisalaam caalin waxaan arkay in YouTube iyo Facebook wax mu'aamarada la soo galiyay oo aan sheeganayo inaan ahay Kristaan ama Masiixi maahi waxaan ahay qof Islaama oo ashahaadato oo diinteeda taqaano kitaabkeeda midigta ku haysato ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan waa wax layga sameeyay waa wax laygu mu'aamaraaday si ay igu dhaceen ma garanayo meel xaflad Soomaali ku qabto gabar baa iga casuuntay oo tagay meeshii markaan wax ka cunayna wax igu dhacay oo dambe ma garan karo ma lay daroogay ma wax kala leeysiiyay ma fahmi kari maahi qof Masiixiyada maahi qof diinteeda ka baxday ilaahay baan ka magan galay diinteyda islaamka oo macaan oo laygu soo barbaariyay inaan ka baxo astaghfirullah wa atuubu ilayhi hadii afkayga ilaahay ka keenay ilaahay baan u soo noqday u toobad keenay u sujuuday subhanallah ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii khalad afkayga ka dhacayna asaan ka rajeynay inuu iga cafiyo waa qubaystay waa ka ashahaatay waa ka tukaday naxdintii aan ka naxay ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta ma aan hurdin saadaradeed ayaan walaalahay iyo dadkayga iyo muslimiinta iyo intii taqaanaba u sheegaya inaanan ahayn qof Masiixiyada sidaad ii aragtaan kitaabkaygana midigtaan ku haystaa ashahaadadeedina waa qartay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Uimado, inugado delisa, kuwa unsan, onadisan, olagumreydisa, sida xidig bayunurayan, wawarkiisa jannada, farxad badan bunasi. magacayga waxa la yiraahdaa Sheena Gaabo waxaan deganaa waddanka Ingiriiska waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo Masiixi ah ama Christian sida u taqaanaanba waxaan idin leeyahay idin ka codsanayaa rabbiga idin kaga baryayaa inaad Masiixa u timaadaan Masiixa soo raacdaan Masiixa wuxuu yiri waxaan ahay jidka waxaan ahay runta waxaan ahay nolosha jidka lama jiro aan ahayn ka Masiixa Masiixiyadu waa badbaado u kaaliya badbaadada si aan dhamaantaanba meesha rabbi uu noogu tagalay aan u deganaana u joogno asina aan la joogno jecel uu noo qabo daraada ayuu noo doortay uu noo badbaadiyay ee u kaaliya Masiixa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaanba waana mahadsantiin waxaan ahay waxa la yiraahdaa Faadumo waxaan ahay gabar Soomaali ku dhalatay oo Masiixad ah iminkana waxaan deganahay France waxaan qaatay Masiixnimada muddo oo iminka ka dambeysay 14 sano marka inta waan badbaaday oo waan helay maanta badbaada Ciise Masiixi marka waxaan rajaynayaa dadkeena Soomaaliya oo inta walaalaha maanta videogaas eeganayo inuu maaragtay isku dayo inuu Bible-ka akhriyo oo arko xaqa iyo jidka iyo nolosha oo runta ah waayo meesha kaliya ku badbaadayno oo runta waa Ciise Masiixi kan nabadda laga helayno waa asaga marka waxaan u rajaynayaa dadkeena Soomaalida meesha joogaanba inay gartaan inuu Ciise Masiixi kaliya idin badbaadin karo oo nabadna idin siin karo marka waxaan u rajaynayaa dadkeena Soomaaliya meesha waddankeena inuu helo nabad
iyo jacayl badan waa tani aan u baahannahay tan maanta nijijibinayso meel walba naga burburisay waa jacayl la'aanta iyo nabad la'aanta waxaana laga heli karayaa ciise masiixi magacayga waa Maria waxaan ahay Somali Christian waxaan rabbiga qaatay 14 sano ka hor waxaan deganahay waddanka Norway masiixi waa badbaadada waa nolosha waa iftiinka wadada kaliya oo nolosha weligeed aad ku heli kartid rabbiga oo kale magacayga waxa la yiraahdaa Michael waxaan ahay Somali Christian masiixi waxaan deganahay dalka Talyaaniga ciise masiixi waxaan ugu talagalay inaan markhaatiga u furo waa rabbigayga ilaaha nool waana ilaaha quraya dhabta adduunka ka jira salaam baa idinku salaamay magacayga waxa la yiraahdaa Amuun waxaan deganahay waddanka Norway farxad baan ka helay masiixa iyo deganaasho iyo nolol qabow waxaan ka helay dareena inaan saaranahay jid saxsan inaan dareensanahay inaan rabbi la hadlayo oo ii maqlayo masiixu wuxuu aad ugu hadlay oo aad ugu dadka ku dardaarmiyay inay qof kasta jaarkiisa jeclaado inay dadku isu jeclaadaan sidoo isagu dadka u jeclaa haddii aynu qof kasta hadduu jaarkiisa jeclaan lahaa adduunkan dagaal muu jireen waddankeena waxayna kala wada fadhiyay wax weeye dagaal marka qofkii nabad doonayo masiixa qalbigaaga u fur حتى هذا بيبل كون أخرجه هذا كون قلبي قاعد فرنين وأدرك دون توحنا كهذا إنه رب هيدا سو هذا يو أمانة 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 سوحتي أمانة قلبتي أمانة هللويا عيسى مسيح أمانة وحاله هسيدا بدبديهنا بدبديهنا وحاله هسيدا بدبديهنا بدبديهنا ملك سجودنا أمانة 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 سوحتي أمانة قلبتي أمانة هللويا عيسى مسيح أمانة أمانة هللويا أمانة هللويا أمانة سوحتي أمانة قلبتي أمانة هللويا عيسى مسيح أمانة وحانو هسنا بدبديهنا بدبديهنا وحانو هسنا بدبديهنا بدبديهنا ملك سجودنا أمانة 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 سوحتي أمانة قلبتي أمانة هللويا عيسى مسيح aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Simon Saalax waxaan ahay nin Soomaali ah waxaan aaminsanahay diinta masiixiga ciise inuu yahay badbaadiyahayga ciise wuxuu i helay aniga oo nin dhalinyar ah wuxuuna iga soo saaray nolol aan ku jiray oo mugdi ah markaan isaga helayna waxaan helay iftiin maxaa yeelay isagu wuxuu yiri anigu waxaan ahay iftiinka dunida kii soo raacana ma lumi doono sidaas darteed waxaan qirayaa in ciise uu yahay badbaadiyahayga walaalaha halkan naga daawanayo waxaan cadeysanayaa maanta ama nii marqaati furaya inaan ahay qof Christian ah oo Soomaali ah magaceygana waxaa la Raxmo Maxamed Aadan oo ku nool waddanka Finland waxaan ii sheegay inaan magac aan qatay masiixa aan ku helay nabadda weligeed ah magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed waxaan deganahay waddanka Finland waxaan halkan ka qirayaa inaan ahay Soomaali masiixi kuna qanacsan aadna ugu faraxsan diintiisa kuna faraxsan sidoo kale badbaadiyihiisa ciise masiix rabbiga jannada ku jira
anigu magacayga waxaa waaye Ruqyo Maxamed waxaan deganahay London Ingiriiska waxaan halkan ka marqaati furaa inaan raacsanahay diinta Masiixiga oo aan aaminsanahay Ciise Masiix waxaan rajaynaa walaalahay Soomaaliyeedna sidoo kale inay Ilaahay ku soo toosiyo jidka saxa ah ee aaminaan Ciise Masiix goortu yimaado inuu qaado dalkiisa kuwa quusan oo nadiifsan oo lagu maydhay dhiigiisa sida xidig bay u nuurayaan waa warkiisa jannada farxad badan buna siiyey nolol daa'imista magacayga waa Yuusuf waxaan deganahay Norway waxaan ahay Soomaali Masiixi Masiixu waa badbaadiyahayga waa Ilaaha runta ah wuxuuna kitaabkiisa ku dhahayaa qof waliba aniga i rumaysata ma lumi doonto laakiin waxay lahaan doontaa nolosha weligeeda Soomaalina waxaan ugu duceynayaa inay Masiixa soo raacaan aamin waxaa la yidhaahdaa Qamar Klaasan waxaan ahay Soomaali Masiixiyad degan waddanka Sweden waxaan ahaa Masiixi 20 sano waxaana aan rajaynayaa Soomaalida Masiixiyiinta inay ay u yimaadaan Rabbiga Ciise Masiix rabbiga runta ah oo jira oo aan arkin ilaa iyo Soomaalida aysan indhahooda ku maqan ay qalbigooda ka taa indhahooda kala furan qalbigoodana ka ogaan rabbiga runta waa Rabbiga Ciise Masiix waxaan u rajaynayaa waddankeena inuu badbaadiyo Io mi chiamo Armando vivo in Italia sono un cristiano somalo cristiano magacaygu waa Armando waxaan ku noolahay dalka Talyaaniga waxaan ahay Soomaali Kiristiyaan ah Masiixi magacayga waxaa la yiraahdaa Shaniya Gabo waxaan deganahay Ingiriiska waxaan ahay gabar Soomaali oo ah Soomaali Kiristiyaan waxaan walaalaha Soomaalida meel walba iga daawanayo aan u sheegayaa inay u yimaadaan Masiixa oo ah badbaadiyaha kaliya nabadu waa isaga jidka jannadana waa isaga jid kale ma jiro walaalayaal u kaalay Masiixa aad badbaadaane noo raaca jannada waa mahadsantiin Jesus is the way. Hallelujah. Come to Jesus. asaga ay badbaadinayo waxa uu maahan sound soconaa waxaan gelinayaa